waxaan idin sheegay marka ugu horeysa horta qof islaam ah la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ku ashaati oo islaamku ah marka labaadna mas'uul bane sabab aan diinta ku caayay iyo ila qofku intuu xaflad tago diinska ma caaye xaflad baaba laga yeeray oo munaasabad aan diinka caayay ma jirto oo meesha rays la yaabo oo aan diinka caayay ma jirto min diinta caayana mihida islaam baan mas'uul bane munaasabada laga yeeray ragii kabarada hayay ee duubayay baa hadda qaar halka joogaan kabarad baan haysay not inay ahayd wax ciyaar iyo safaad iyo qofba wuxuu doono iska oranayo oo aan helin kabarada ay marxatiya ways iyo mustafa sama joogaan labadii kabarada hayay hadda xusuusna adigu wad fadhid marxatiya iyo fili والله انت صدق اديسون قبا mid kale dad ka badan boqol baa fadhiyay anigu waa laga yeeray nin baarlamaan ay taagnaa oo ii joogay waxaan ku yiri war waan degdegaynaa hadalka noo hormariyo shaqooyin baan oo yeelay waayahay baan ugu yiri hadalkii baa hadina laga hormariyay waan kacay wallahi waxay igu sugeen ma ku fiirata nima baarlamaan oo baxayo aniga saacada ii xanibnaa baahay waxaan ku yiri dabaan soo noqday amba aniga iga tuujamo iska tiir inankii mikrofoonka hayaa yiri bax wuxuu taagan yahay meesha memberka ee laga hadlo soo dusha maaha bax buu igu yiri warmaanada sheegay sabaan ku fiirada ku dhaweey markaan hadlayo halka laga baxso galamis bal in yaru jira albaabka warmaanada sheegay sahaayadana ku sheegayna bax buu wax fagaara laga sheego ma ahayn in yaro deegu aflagaadoodu ahayd waayahay baan ku yeesuk jawaab dunbaan halka kameen kuma leeyo yaatimi karin ismaanana dhaweyna dad biblashka oo dhan baan maqlayay waan iska baxay dad igu yiri xitaa joog baa jiro ma joogayaan dadku sheemka baxdeeyay booliiska nina ku sheegay xukuumina kaasi daraas ugu sameeyay wax ka qabta anigu markaas ay gudbiyay waan iska baxay booliisku soo qabtay waa la dhaafiyay anigu nimankii baan la shiray aan la balansanaa baan rees lafteeda kula shiray waan inta aan la shiray baa markaa booliisku dabeedna fiyaarda isku dhaafnay anigu gaarigayga istaaraysan way dhaafiyeen seshigay diinta caayda cidna kamaan maqal intaanu حسد هي كور انت العين انك ما فنعوذ بالله حسد يوحيد انا قلت مشهود لكن ور دد ان رميستي ادو waxaan kaas baayishay waxaan kale idin sheegay horta waxa ma qaban leh dalka la dawlad baa jirta sharciguna qof walba uu qabanaya anigana uu qabanaya adiguna uu qabanaya xisbiga uu qabanaya qof allaale qofkii qof dabi ka kala uu qabanaya qof fidasan isaga yaqaan tan ilaahay baa bale teedii waa idinka jawaabay waan idin sheegay labada arrimood xasdiga raacay horta xasan masaajidkan wuxuu ka dhigtay orientation maaha maalintii ugu horeysay ka hadlo maalintii ka horeysay ee uu cid ka maago ama ka caayona maaha wuu caadaystay xasan waa nin al-shabaaba oo ku dagaalamaya dowladda dhan ee jirta doonaya inuu afku rido dabeedna cid ka helo
halkay qalanka ka dagaalamayaan saaxiibadii ay kaga dagaalamayaan hub waxaan sheegayaa inuu isagu doonayo inuu afdagaalamo dowladku kala kaxeeyo qabaa'il dadka isugu diro waa nabiibi waa beenaale waa kadaab waa nin la wada yaqaano oo fiidiyowgiisii oo dhan baa la hayaa barasaabkii ugu horreeyay uu yidhi diin buu caayana miihi sababtu uu leeyahayna waxa weeye ee aniga imika hadalka u keenana waxa weeye nin baa lagu dilay saa wada ogtihiin oo ilaalinayay mashruucii ballaarinta biyaha Boorame oo askariya iyagoo askariya waa lagu dilay ninka marka la waayo cidisha waa wax dalka oo dhan ka jira waxa loo qabtaa eheladiisa iyo weeyelkiisa iyo qaqashiisa anigu yagaan qaban guddi nabadgelyo ahaan baan ku shaqay intii aanu islahayn nimanka waa loo xidhi karayaa nimanka waxaanu haynaa anagu ilaa 7 nin ay ku weesayeen cidii falka geysatay gacanta ku dishay cidii la socotayba cidii markaa loo hayn karayo ama loo qaban karayo aanu qabanay guddi nabadgelyo isii Mustafa warqad baan ku saxaanay in markaa la xiro xasdeeyay waxa ku jirta hadalkiisa taliya qaybta markaa weydiiyay anaga waxna barasaab ku xiray isaga cadeyn doona arrinka waxa cadaana oo hadalkiisa khudbada intii dambe ku daray wuxuu xiray niman tolnahay oo u xiran eeg marka maxaa cadaanaysa hala dilo iyo waxaanu iga sheegay been abuurka oo dhan inuu u wato wata waraqa Soomaaliyeed saxiixda waa wadaka guddiga inta nabadgelyada oo taqaaniin bas saxiixay mid kale sano guulidiisa u yidhi kagama waabanay haddii ragga qaar kaga waabteen oo israadeen de malaaci waxba baalkeen la yiraahdo go'aankii aanu gaarnay aanu gooni uga ma baxay ninka bixina karaana majruud taasan waa saxiixna arrimaha nabadgelyada ee xuseeya gobolkan iyo Boorame baan u qabanay darteed haddii mashruuci biyo ballaarinta Boorame lagu dilay nin haddii la heshiiyay anagu kama xumin laakiin waxa laga heshiiyay labadii qabiil baa heshiiyay haddii la oran doono waa la heshiiyay laakiin maana ciqaab lahayn ninka mashruuca ninka baadilka ku dilay ama cidda ku dishay ama gruubka ku dilay ninka askariga ah ilaalinayay hawl qaran ku jiray ee lagu dilay maana ciqaab lahayn idinka su'aalaya ama dilweyne u taala ciqaabtiisi baan u haynaa inaanu dadka oo helo ka sharo ciqaabtiisi horaan ugu daray dadkina oo keena laba meelood oo kaliya fog baan marin dadka ama waan helayay iyagaan oo keen laakiin taanu hadeer u haynaa waan idin sheegay Soomaali fahminka waxaan u haynaa ninka la dilay ciqaab uu leeyahay dadkii dilay ay leeyihiin ciqaabtoodu maan u haynaa haddii kale waxa dhacaysa in maalin walba nin la dilo jaamacadda lagu dilo wadada lagu dilo wadada waxa la wixii horumar lagu dilo ay dabeedna ay wada noqoto haddii banka inta laga heshiiyo dabeedna ciqaab loo soo cidna loogu soo qaban haddii reer Boorame diyaar ku yihiin anagu nabadgelyadooda aan saa ugu hayna maalin bana cid bay ku dhacay cidna maanta uga fasax qaadanayno cidna iska dhismayno waa nabadgelyada annaga ka mas'uula guddiga nabadgelyada oo dhan aan ugu sareeyaa waa saxiixday inaan nimanka hayno haddii la noo yimi waxaan ku sii deeyno waan garan weeyay biyahaasi ma fasaxmayaan haddii aanan daqiiqkiin ama dadkii baanu haynaa ama digbil baanu haynaa cidda saxiixooda laga doonayaa waa annaga oo aan ugu sareeyo ugu horeeyo cidda laga doonayaa in biyaha dib loo bilaabo mashruuca biyo ballaarinta ee istaagay ee isu taagay ninka la dilay dartii wax kale isu taagay soo ma ogidin
inta laga doonayo dub bilaabideeda inaan salaxeexo inay nabadgelyo helayaan in dub looga iyo nabadgelyo looga helayo waa aniga dadkina way baxsadeen cuqaashoodii iyo odayaashoodina waa sii daayay dee kuma sii dayn kareen magaaladay dan u tahay inayn kuwana hayo looguna helo kuwii geystay dembiga lana ciqaabo biyahoodii loo sii daayo haddii kale meel kasta oo magaalada ah ama gobolka oo horumar ka socdo bay ka dhacaysaa taasoo kale si aan uga dhicin mas-uul baanu ka nahay dowlad baa dalka ka jirta xasadiheeyo dowlad kama aha haddaan caddaynaya al-shabaab qayb ka midoo boorama joogto weeye oo ku dagaalamaysa inuu dowlad afku burburiyo kumana burburin karo wallaahi inaan ugu burburin karin wallaahi inaan ugu difaaci karin nin maadar galay inaanu masaajidka hadalu ka leeyo been abuura inaanu ku difaaci karin xasadiheeye waa caadayste beenaale kadaaba waxa xasad aanu haynaa oo laga eriyay masaajidada bartanka magaalada ku yaala laga eriyay aflagaado iyo cay uu ka shubay oo uu tagay kuwa koonayaasha aad loogu talagalay dadka qariibka inay ka soo galaan markaas media u yeedha qof dadka masaajidka jooga ma la hadlay media ugu yeedhanay marka hore waa jiraan wadaadada kale soo isticmaal laakiin xasuuq ugu horeeya inuu ka caayo masaajidna halkay diinta ka taalo dadka in laga caayo masaajidka uu leeyahay waxba laga xukumi jiro waa run laga ma jirin wax laga xukumi jiro qofka la keenay jiro marka wax ka cadaadaan baa lagu xukumi jiro xasan maxbuub nagu cadeeyay mise isagu waa maxkamadii xasan maxkamadiina ma dawladdu maxkamad bay leedahay maxkamaday leedahay kuwaas la geynaya kuwaas laga cadeynaya qofka dambiga wato kaygaana haadi dabadeedna marka dambiga lagu helo maxkamadda wax ka soo saari karta masaga xukumi kara dil ما حكومي كريوا بين لك الداب وإلهي أنا أقول وحشيقي يعني وكتشري حسن مثل على محمد لكي الأمر ما يقولي أقومت اللسية وقفت أقوم اللسية بغير كيس كتشري يا كلا حساب طبعا يوم بدو كدس إلهي ما كديني لا سجل الله مسيني حسن اسكولو هايستا وانكا اسكا سو تاغن واد اوغتيو فيودي واد هلي كرتان برسابدي هوري او يري دينتا عاي الهي نبي حسن هدو دنتا او ليهاي خير نمو وايو wuxuu ku dabaqayaa inuu dadka beel ka sheego mas'uuliyiinta beel ka sheego wax ana oo la yaqaano anigu ummadan wuxuu sheegaya horta inaan waxa gelin xasan waxa laga rabaa dawlad baa jirta meel dawlad la'aan ay gameeyeen aniguna dawlad baan jooga reerkoodana lama joogo sagana lama joogo dawlad bay keensatay xukuumad madaxweyne leh oo wasiir leh oo la doortay bay keensatay oo barza waay halka waay xasan in la jooga mihi sagay reerkiisa toona wuu cadaynaya hadduu cadayn waayona wuxuu gelayaa tallaabo sharciya laga qaaday